daawadayaal kusoo dhawaada barta Facebooka ee idaacadda VOA da lanteeda afka Soomaaliga. Magaciigu waa Jacfar Kukay. Doorashadii madaxtinimada Soomaaliya ayaa goor dhaweyd soo gabagabowday iyadoo wareegii koobaadba ay ka soo baxeen ilaa 4 musharax oo kala ah Cumar Cabdirashiid, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Wareegii labaad markii loo soo gudbay waxaa isugu soo haray sidoo kale Sheekh Shariif aan iraahday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu helay 184 cod, Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu helay 97 cod, halka Sheekh Shariifna uu helay 46 cod. wareegii saddexaad in loo gudbo ayay ahayd, laakiin madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mikrofoonka qaatay oo shaaciyay in uu ka tanaasulay oo aanu tartamaynin wareegga saddexaad, isla markaana waxa uu ugu hambaliyeeyay musharaxii la tartamayay oo ah Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in uu qabtay amaba uu noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. durbadiiba Farmaajo waxaa loo dhaariyay xilka madaxtinimada Soomaaliya iyadoo hadal koobanna uu halkaasi ka jeediyay. haddaba Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waa kuma taariikhdiisa oo kooban oo aan ugu talagalnay idaacadda, hase yeeshee si aanu Facebooka uga sii baahino ama uga sii dayno aanu sawirkiisa dul saarnay. kusoo dhawaada waxay noo soo koobaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan. waa aabbaha 2 wiil iyo 2 gabdhood, waxaana u dhaxda Zaynab Cabdi Macalin. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu waxbarashadiisa asaasiga ku soo qaatay magaalada Muqdisho oo uu ku dhashay, isagoo markii dambena u soo wareegay waddanka Mareykanka oo waxbarashadiisu ku sii watay. Farmaajo waxa uu bartay xirfado ay ka mid yihiin xalinta khilaafaadka iyo hogaaminta oo uu ka bartay College-ka Erie Community College ee New York, isagoo sidoo kale shahaadada labaad ee mastarka ka qaatay jaamacadda New York cilmiga siyaasadda ee Political Science. Soomaaliya iyo Mareykankuba waa uu u soo shaqeeyay isagoo sanadihii 1985 ilaa 88 ka howlgalay safaaradda Soomaalida ee Washington. burburkii Soomaaliya kadibna waxa uu wareegsaday New York oo wax ku bartay, dabadeedna shaqo uu uga bilaabay dowladda hoose ee degmada Buffalo ee New York. Cabdisalaan Maxamed Garjeex oo ay Maxamed Farmaajo dugsiga sare Muqdisho ku soo wada dhigteen ayaa ku tilmaamay Farmaajo inuu yahay qof ixtiraam iyo dadaal badan, isagoo sidoo kale VOA la wadaagay waxa uu ka yaqaano Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. maxamed waxaan isbaranay waqti hore oo ah waqtiyadii dhalinyarada oo uu dhiganahay dugsiga sare. maxamed waxaan dhihi lahaa horta hore markuu dhalinyarada ahaa wuxuu ahaa nin firfircoon oo qalbi fiican oo bulshay ah. kadibna markii uu noqday shaqaalaha ama dawladda u shaqeynayayna waxyaalaha aan ku bartay waxaa kamid ah nin nadiif ah oo wadani ah inuu yahay, oo mar walba aan jeclaa horumarka dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaanna mar walba ku dadaali jiray in wixii waxtar u leh dalka Soomaaliyeed uu qabto. dhammaadkii bishii Oktoobar sanadkii 2010 ayaa waxaa madaxweynihii xilligaasi dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu u magacaabay Maxamed Farmaajo inuu noqdo ra'iisul wasaarihii xukuumadda Soomaaliya. muddo 7 bil ah ayuu shaqadaasi hayay, isagoo iska casilay xilka ra'iisul wasaarenimo Juun 19 sanadkii 2011 kadib markii ay xumaatay wada shaqaynta xukuumaddiisa iyo baarlamaankii xilligaasi jiray ee uu hogaaminayay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo hadda ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. 7daasi bil ee uu xafiiska joogay ayuu Farmaajo ku kasbaday shacbiyad fara badan. waa kan Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baallo oo soo noqday madaxa shaqaalaha xafiiska Farmaajo xilligii uu ahaa ra'iisul wasaaraha, oo VOA la wadaagaya waxyaabihii uu Farmaajo uu diiradda saaray muddadaasi 7 bilood ee uu xafiisku joogay. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu ku caan baxay oo intaan ka aqaanay xafiiskooda joognay daacadnimo iyo hawsha oo ummadda u hayo oo uu arkay inay tahay hawl muhiim ah oo asaga ka weyn, runtiina mar walba isku dayayay inuu soo celiyo wixii dowladnimadii wixii ku dhumay. wuxuuna diiradda saaray 3 area. ereyada ugu horeysa waxay ahayd si dib u dhiskii ciidamadii qalabka sida. waxaan ilaa hadda aan iloobin waxaan aasnay oo asaga fikirkeeda lahaa markii aan joognay muddo 2 bilood ah xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ra'iisul wasaare ahaa, in dib loo soo celiyo xafiiskii askarta militariga ku naafoobo ama ku dhinto ayagoo ku jiro shaqo qaran, loona bilaabo mushaaradoodii ama familigoodii, ama hadday ayaga yihiin dad waxyaalo ka soo gaartay oo weli nool dhaawaca
mushaarkoodii in xafiis gaar ah laga siiyo. sidaa la socotid mushaarada waxaa bixin jiray markaas hay-ado oo caalami ah oo dibadda ah. marka mar allaale markii qofka askariga u dhaawac noqdo ama u dhinto waxay dhihi jireen liiska ha laga saaro. sidoo kaleento si uu u dhaqaaleeyo lacagaha yaryar oo kasoo gala dowladda oo markaas aada u yaraa, wuxuu go-aamiyey oo golaha wasiirada kusoo rogay inaan safarada faraha badan oo wasiirada golaha wasiirada ay baxaan la yareeyo, oo safarada ay noqdaan safaro keliya heer wasiir ah, oo haddii laga kaaftoomi karo ay safaarada meel noo joogta ay tahayna inay safaarada masasho. sidoo kaleo la socotid safaradii asaga oo galay waxay ahaayeen limited. taasna mar walba wuxuu ku safraayey wuxuu la safraayay dadka shacabka ah. taas waa mid dib u dhiskii iyo hantidii in la soo celiyo askarta ama maxaa la yidhahda ciidamada qalabka sida inay confident ku noqdaan dowladooda iyo dhaqaaleyntii dakhliga yar oo dowladda soo galo in la dhaqaaleeyo. tan saddexaad uu ku caanbaxay waxay ahayd oo mar walba diiradda saarayay mushaaradaha shaqaalaha dowladda iyo mushaaradaha militariga iyo booliska iyo nabad sugidda in bil walba lagu bixiyo waktigii loogu talagalay. maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu ka horjeediyey xubno baarlamaanka ka mid ah qorshihiisa haddii loo doorto xilka madaxtinimada Soomaaliya. waxaynu bedelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro goortu doorashadu dhowdahay. waa soo aragnay 2012 waa tii baarlamaanka la xiray oo hawshii baarlamaanka loo weeciyey saxiixayaal. haddana sanad ka hor waa tii la xiray oo hawshii baarlamaanka sharafta lahaa loo weeciyey madal. awoodda baarlamaanka iska leh habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in mushaharada ciidamada shaqaalaha dowladda iyo kan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin loo arko hadiyad markii la doono madaxdu ay bixiso. mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku maaha hadiyad ma ah, waa xuquuq sharci ah. waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso. maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waxa uu ka mid ahaa in ka badan 20 rag oo isu soo taagay xilka madaxtinimada Soomaaliya. maxamed cabdilaahi maxamed aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay taariikhda madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo. haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa laga fili karaa amaba maxaa Soomaalida meel walba ay dunida ka joogto ay ka filan kartaa madaxweynaha cusub ee maanta loo dhaariyay loona doortay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. wariyaasha VOA oo magaalooyin kala duwan iyo waliba wadamo kala duwan ku sugan ayaa makarafoonka iyo kaamiradaba waxa ay la dhex qaadeen qaar ka tirsan Soomaalida. waxaanu ku bilaabaynaa Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota magaaladiisa Minneapolis. waxaa makarafoonka iyo kaamiradaba la dhex qaaday wariyahayaga Mascade. haddaba aanu daawano sida dadka ku dhaqan magaaladaasi ay u arkaan madaxweynaha cusub amaba waxyaabaha ay ka filayaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacayga waxa la yiraahdaa Bashiir Garaad, waxaan ahay mulkiilaha shirkadda Safari Travel oo iyo xisaabaadka. haddaan yar kaftamo waxaan ka baqanayaaba in madaxweyne daacada laga waayo wadanka, laakiin madaxweynaha dhowr qodob baan ka codsan lahaa in uu raadiyo xal waara oo ummadda isugu keeno oo dib u heshiisiin dhab aha, in uu ka islaaxiyo dagaaladii sokeeye ee wadanka ka dhacay, in uu isagu noqdo qof cadaalad aha oo wadanka u shaqeeya una noqonin nin wadanka ka shaqeysta. magacayga waxaa la yiraahdaa Faarax Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. saddexda arrimood oo aan isleeyahay waa ugu muhiimsan tahay dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub waxay tahay kow, dowladnimada in maaragtay hay-adaheeda waaweyn in la dhiso sida wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo maxaa la yiraahdaa laamaha kala duwan ee dowladda si dadka loogu fidiyo adeegay u baahan yihiin oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo ammaanka iyo la xiriira dhammaan arrimahaas oo dhan. arinta kale oo isleeyahay waxay ugu muhiimsan tahay arrimaha kalena waxa waaye arinta ammaanka. waxaan isleeyahay haddii dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub ay ku guuleystaan inay dhisaan ciidamo xoog leh oo ama boolis ahaadaan ama military ahaadaan ama nabad sugid ahaadaan, kuwaas oo runtii ammaanka wadanka gacanta ku dhiga. bismillaahir rahmaanir rahiim. Cabdirasaaq Axmed, waxaan joogaa Minneapolis Minnesota Mareykanka ayaan joogaa walaal. midda ugu horeysa waxaan leeyahay madaxweynuhu talada wadanka horta inuu Soomaalida gacanteeda ku soo celiyo
waddankeena xuduudihiisa waa aragtay maalin kasta wufuud baa gobolada iska imaanaysa madaxweynayaashii gobolada dowladihii la soo shiraya waddanka haddaad tagtid gobol ka mid a xuduud Soomaaliya inaad soo galaysid ma dareemaysid waxaad dareemaysaa xuduud maamul goboleed inaad soo gashay marka immigrationka inuu waddanka oo dhan ka shaqeeyo xuduudihii waddanka markaad soo gashay inaad Soomaaliya soo gashay inaad dareentid oo maamulkii la baahiyo oo waddankii markii aad gacanta ku soo celiyay madaxweynuhu marka talaabooyin kale oo qaadi kara waa loo soo gudbi karaa magacayga waa Cabdikariin Axmed Daahir Xasan ku nool gobolka Minnesota magaalada Minneapolis marka hore ku mahadnaqayaa VOA marka labaad waxaan hambali u dirayaa madaxweynaha cusub Soomaaliya ee la doortay 2016 ilaa 2020 hambaligan leeyahay saddexda waxyaabood aan leeyahay qabto waxa kamid ah number 1 amnigu waa muhiimka waddanka nimanka nabadiidka inuu difid gareeyo waddankan amni ka dhigo mid labaad dhaqaalaha waddankan Soomaaliya dhaqaalihiisa in la mideeyo dekada xamar kaliya dhaqaalaheeda dal lagu maran garan karo dekadaha Berbera Boosaaso iyo Kismaayo xamar in dhaqaalaha ka soo gala la mideeyo waddanka cudud weyn oo dhaqaale loo sameeyo iyo foreign policy dalka oo la toosiyo oo waddanka arrimaha dibadda ee dawladda dhexe federaalka ay xukunto nimankan maamul goboleedyada ah madaxweynayaasha ahnana magaca governors ee la baxaan oo waddanku u yeesho halka madaxweyne ee la doortay iyo maamullo federaalka saldhig ah magacayga Cabdi Nuur Yuusuf waxaan joogaa Minneapolis Minnesota madaxweynaha Soomaaliya loo doorto waxaan ka doonaynaa mid koobaad in uu muujiyo midnimo qaran iyo isku soo dhaweyn ummadda Soomaaliyeed midaas waa mid koobaad mid labaadna waxay tahay in uu sameeyo mashruuc shaqo ahaan ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarta ah oo qaxaysa oo waddankooda ka soo cararaysa inuu dibadejin u sameeyo madaxweynaha la doortay waxaan u aragnaa inuu dalka ku hogaamiyo peace prosperity inuu barwaaqo horumar ku hogaamiyo weli waxaynu ku guda jirnaa aragtidii dadweynaha Soomaaliyeed oo ku kala dhaqan magaalooyin iyo waliba wadamo kala duwan ee ku aadanayd madaxweynaha cusub iyo doorashada maanta ka dhacday magaalada Muqdisho haddana waxaanu idinku duweynaa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo Soomaali fara badan ay ku dhaqan tahay waxa ay aragtidooda ka dhiibanayaan isla markaana ay ka hadlayaan waxyaabaha ay tahay in madaxweynaha cusub uu xooga saaro kaloo loo baahan yahay in la sameeyo dawlad in la soo dhiso prime minister oo dalkan ku horkici kara nabad oo horkici kara horumar sameyn kara qualified oo ah prime minister nabad iyadoo aan loo eegin cid walba qabiil loo eegin cid walba loo eegin interviewga prime minister laga qaadayo waa inuu yahay prime minister dalkan dawlad soo dhis kara dawlad adag soo dhis kara prime minister dalka isu keeni kara waxa laga filayaa madaxweynaha la doortay inuu isu keeno qaranka Soomaaliya dhamaantiis waxa laga hadlayaa kooxaha nabadiidka ah مثلا كوحدة الشباب وكذا هشيس إن لا قالوا أما دجال لا قالوا دخل لوجا سفري وحلا قال يا إنه سوى سوماليلاند قبل كسوماليلاند إن أي نيغوشيشن أدق لا قالوا يعني نيغوشيشن أي كوكنا عن شعب كسوماليلاند واحد كوكنا عن إنه الله شيء شعب كسوماليات أو قبل أكل حرن حتى دول قبل ذاك النقضي إنه سكفروا مجاعي أحمد صلاة كم عقدير أحمد ألبا هذا أفرح صناعي دور شدة عاد ما دام مدة عن أكفل تي في ذا waxaan u hambaliyanayaa madaxweynaha la doortay waxaan doonaynaa insha Allah maamul goboleedyada iyo ummadda Soomaaliyeed in la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee la doortay waxaan aad u faraxsanahay because dalkii wuxuu yeeshay madaxweyne soo just madaxweynahan waa madaxweynihii dalka samatan bixin lahaa horumar gaarsiin lahaa one vote sida hore u sheegeenba inuu gaarsiin lahaa filaya madaxweynahana de waxa ka codsanaynaa qaybteena dhalinyarada ah inuu naga siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed because dhalinyarada Soomaaliyeed waa dadka aad ugu dhibaataysan ama dhibaatada weyn ku dhacday burburkii dalka because ka dhimanayo labada qole ama dhinaca dawladda ahaato ama dhinaca al-shabaab ahaato ama dadka badda ku baabaayeen ama jeelar maxaabiista adduunka ku jiraan aadan ama nin kasta oo soo qabta dhalinyaro ama wax galabsaneen la xiraayo waa dhalinyaro marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha in qaybteena dhalinyarada ومن نجسي دولتي عصب. خضر عبد الخضر عن سياد ولا الواسود وين مدحونها إلى دورتي عصب علينا هنبليو حل أد وين بقبتي إذا أقول لك علينا هو مسؤولية قف كسر مسؤول ويقول سوكية لكن ما تصميم مسؤول قاضي واسود وين علينا هو ويلكم ما كسر له سعادة صوماليات الدور هو كيور هذا هدو إلهي قدره هدو ربنا أكيد مثل مثلا عصب هذا علينا سود
madaxweyne waxaan leenahay madaxweyne cusub waa u hambalyeynaa madaxweyne cusub waayahay madaxweynaha la doortay maxay tahay inuu qabto oo ahmiyadda koowaad iyo labaad horta ummadda Soomaaliyeed waxa ku dhacay tii wax la yiraahdo reer banu Israa'iil tii wax ku dhacay 40 sano bay tii ku jireen bal saako intuu guuro wuu soo laabanaya meesha soo laabanaya 40 ummadda Soomaaliyeed waa dhiban yihiin qaxooti weeye waxa weeye qurba ka dadsan yihiin waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed xaq ba ka saaran muxuu xaq badda ku daadanaya oo tahriibaya oo waa dhibaato ka jira waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha cusub inaad ka shaqeysid sidii soo kooban lahayd oo Soomaaliya mid u noqon lahayd waa tahay daawadayaal waxaad naga daawanaysaan barta aanu ku leenahay Facebooka ee VOA Somali waxaanan ku guda jirnaa barnaamijkii ku saabsanaa doorashada ka dhacday maanta magaalada Muqdisho ee uu ku soo baxay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo welina waxaynu ku guda jirnaa aragtidii dadweynaha Soomaaliyeed ee nadaawada idaacaddana naga dhageysta ay ka dhiibanayeen doorashada maanta ka dhacday magaalada Muqdisho waxay ku saabsan tahay aragtidooda inta badan waxyaabaha ay ka filanayaan amaba ay ka dhursugayaan in uu qabto amaba uu ku dhaqaaqo madaxweynaha maanta la doortay haddana gudaha wadanka ayaynu u leexanaynaa waxaan gaaraynaa magaalada Beledweyne oo qaar ka tirsan dadka ku dhaqan magaaladaasi ay aragtidooda dhiibanayaan dooranayo oo soo sharaxayo inuu ummadda iyo dalka iyo diinta inuu wax u qabto haddii uu qaban karin waa inuu doorasho una gelin ummaddu waa dhibaataysan tahay waa inuu dalka iyo dadka wax u qabto cadawga uu ka bixiyo gobolada kala go'an oo la kala qaybiyay inuu isku keeno oo hal madaxweyne uu u noqdo magacayga waxa waay nagaad iidla ducaale oo gobolka Hiiraan ku nool madaxweynaha la doorto waxa hamid inuu saaraa raba inuu wadanka horumar gaarsiiyo sida caafimaadka waxbarashada ammaanka iyo dib u dhiska dalka iyo maamulada meelaha tagtaagan inuu hal mid ka dhigo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaydu waxa la yiraahdaa Maxamed Khaliif Tugo waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan waxaan isleeyahay madaxweynaha soo baxa waxaan rabnaa inaan ka helno qaababka soo socda waa inuu noqdaa madaxweyne Soomaaliyeed waa inuu noqdaa madaxweyne wixii shalay baabaa soo celiyo madaxweyne 25 sano dhibaatadii ummadda ku jirtay iyo wixii corruptionka iyo isjijidka ka jiray yaani naga saaro waxaan rabnaa madaxweyne international community xiriir fiican la yeeshto ummadda Soomaaliyeed mantaqana gacmaha isugu dhiibo wanaagii Soomaaliya iyo maqaamkii basha caalamka kulli soo celiya rabnaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cali Ibraahim Waasuge waxaan joogaa magaalada Beledweyne waxaana dadka muwaadiniinta oo ku nool gobolka Hiiraan waxa aan rajaynaynaa haddii Ilaahayga awood loo idmo dadka la dooranayo madaxweynaha ku soo baxa oo Ilaahay oo calaf uga dhigo in uu noqdo mid raas casar iyo raas kaabuni ka hela magac iyo muulad oo raadiya midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqankii aan lahaa jirnay ee suubanaay oo dhinac kasta ka dheelitiran oo aan raadin nin iska dhici iyo wax iska riix iyo hebel xaw yahay oo fiiriya meesha aan taaganahay iyo baaba anagu dhacay iyo dalka waxa ku dhacay nin ay u muuqdaan oo aqal u saaxiiba kuwaasina waxa ay hayeen qaar ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo aragtidooda ku aadan waxyaabaha laga sugayo ama ay ka filayaan madaxweynaha cusub inoo soo diray haddaba waxaan intaasi ku joojinaynaa tabintii gaarka ahayd ee aanu maanta ugu talagalnay doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee uu ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxaana ka horeeyay doorashadii oo aanu si toos idinkaga soo tabinaynay hoolka ay doorashadu ka dhacaysay ee ku yaala xerada Afisyoone ee magaalada Muqdisho haddaba waxaanu idin xusuusinaynaa in aad aragtidiina inoogu soo diri kartaan halkan aad haatanba naga daawanaysaan sideed u aragtaa madaxweynaha cusub maxaad se ka filaysaa in uu qabto madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo intaynu barnaamij kan oo kale ah ku kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo